buugga gobolkii naadirka ahaa ama alqidcatu naadira waa buug cajiib ah waxaa qoray Dr. Nuruddin Edi Yusuf. buuggan wuxuu kaa dhigi doonaa mid dhab ah oo maangal ah, wuxuuna kaa fogeyn doonaa shucuurta dhalanteedka iyo nafsiga. buuggan wuxuu kaa dhigi doonaa qof marle arag ah, wuxuuna kugu dhiirigelin doonaa inaad balaariso aragtidaada, korna u qaado xirfadahaaga oo aadna hagaajiso ciladahaaga iyo meelaha aad ka liidato. daawadaha sharafta leh, waxaan idin soo qulaaseeyey buuggan cajiibka ah. huwaal wax badan ayuu noloshaada ka bedeli doonaa. sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa 30 dardaaran xoog badan oo qoraagu inoogu sheegay buuggan si aad u dhisato shakhsiyad xoog badan iyo nolol macaan. intaan u gudgelin mawduucina waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa hal subscribe hal like inaad saarto muuqaalkan haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. dardaaranka koowaad, ka digtoonow hareerahaaga. dadku waxay kuu muujin doonaan xiiso iyo soo dhawaansho si ay kuu xakameeyaan oo ay si fudud kaga ogaadaan noloshaada wax badan. ugu horeyntii baro inaad dejisato xuduud cad oo adag oo idin dhexayso adiga iyo dadka hareerahaaga jooga. ka digtoonow cidda aad siinayso kalsoonidaada. dardaaranka labaad, jooji ka hadalka hamigaaga. hamigu waa hanti qaali ah, ha kulmin waqtigaaga inaad u sheegto dadka hankaaga iyo hamigaaga, waayo dadka qaar ayaa xaasidiin ah kuu ogoleen inaad hadafkaaga gaarto. guusha runta ah waxay ku dhisan tahay aamusnaan. dardaaranka saddexaad, hal shay diiradda saar. ha samaysan ahdaaf badan aadan xaqiijin karin. diiradda saar keliya hadafkaaga kugu weyn kuguna muhiimsan, isaga isugu geey dadaalkaaga oo dhan si aad guul kaga gaarto hadafkaas. dardaaranka afaraad, dhaqo qof degan oo hal abuur leh. degnaanyaradu iyo isxakamayn la'aantu waxa ay kaa hor istaagaan inaad noqoto qof hal abuur leh. sidaa awgeed degnaanshuhu waa hubkaaga sirta ah ee aad ku qaadan karto go'aanada xikmadda leh xilliyada adag. dardaaranka shanaad, bedel waxaad ka aaminsan tahay lacagta. lacagtu shar ma aha, laakiin waa qalab awoodeed. marka ka takhallus fikradaha xunhan ee aad ka qabto lacagta oo si aqligal u shaqay si aad u noqoto hogaamiyaha hantidaada. dardaaranka lixaad, maskaxdaada ka xoreey fikradaha dadka. ha aadin dadka meeshay u socdaan, balse aad wado kuwa gaar ah adiga aad samaysatay. kacdoonka caqliga leh ee kasoo horjeeda fikradaha hore loo qaatay ayaa ah bilowga guushaada. dardaaranka toddobaad, noqo qof qiimo leh. guusha lama bixiyo ee waa la kasbadaa. kobciso xirfadahaaga si aad saameyn aan la difiri karin ugu yeelato bulshadaada. dardaaranka sideedaad, qofna dhibkaaga dan kama laha. dunida waxay u dabaaldegtaa guul ee ma cabato. abuur guushaada, hana sugin naxariista dadka kale. dardaaranka sagaalaad, ka dhig dareen la'aan hubkaaga. ha kulmin tamartaada waxyaalo aan u qalmin. dareen la'aantu waxyaalaha aad dan kugu jirin aad u muujiso waxay ku ilaalisaa waqtigaaga, waxayna diiradda kuu saartaa arrimahaaga muhiimka ah. dardaaranka tobanaad, in aad si indha la'aan u noqoto qof wanaagsan ayaa ku dili doonta. inaad noqoto qof akhlaaq leh oo wanaagsan aaday u fiican tahay, laakiin si indha la'aan ha u noqon qof wanaagsan. baro inaad isku dheelitirto mabaadi'da iyo xaqiiqada. dardaaranka 11aad, yeelo shakhsiyad qancin bulsho. caqliga bulshada mararka qaar waxay u baahan yahay dabacsanaan iyo caqligalnimo. baro farshaxanka qancinta dadban si aad u gaarto yoolkaaga. dardaaranka 12aad, qabso oo yeelo akhlaaqda dadka akhyaarta ah. iladka dhabta waxay ku dhagan yihiin akhlaaqda sare iyagoo aan daciif ahayn. noqo mid naxariis badan laakiin adag. deeqsi ah laakiin caqli leh. dardaaranka 13aad, fahan cilm nafsiga dadka. ficil kasta wuxuu leeyahay ujeedo qarsoon. baro cilm nafsiga dadka kugu xiran si aad u saadaaliso ficiladooda si aad noqlo macaamiisho si caqligal ah. dardaaranka 14aad, qaar badan oo xaqiiqa waxbarasho ah ayaa noqday kuwa duugoobay. dib u eeg aqoontaada si ay ugu habboonaato waqtigan caalam horumarka weyn ku talaabsaday. dardaaranka 15aad, noqo alfa ama sigma. waxaad noqon kartaa hogaamiye saameyn leh. alfa ama hal abuur leh oo ah mid madax bannaan. sigma, mid kasta oo aad doorato muhiimadda ma aha inaad noqoto mid raacsan. dardaaranka 16aad, fahan dabeecadda aadanaha. dadka waa noocyo kala duwan. baro farshaxanka loola dhaqmo qof kasto siday dabeecaddiisu tahay, kan isla weyn, kan xaasidka ah, kan naxariista badan iyo kan dhagarta badan. dardaaranka 17aad, yeelo sifada ninka gaarka ah. lacagta iyo caannimada waa natiijo ma ahana sabab. marka hore xoogga saar dhisidda dabeecadaada, wax walba si toos ayaa lagugu soo jiidi doonaa. dardaaranka 18aad, noqo mid dhexdhexaad ah oo dheelitir. wax walba markii xadkiisa la dhaafiyo wuxuu isku bedelaa lidkiisa. miisaanka u dhexeeya ruuxa iyo maadada una dhexeeyo hamiga iyo qanacsanaanta waa sirta farxadda dhabta ah. dardaaranka 19aad, ka xorow shakhsiyadaada beeta. shakhsiyadda xishoodka badan waa wadada ku burburin doonta. ka adkaaw cabsidaada ee la dagaalan wax kastoo kaa dhigayo inaad addoon u noqoto ra'yiga dadka kale. dardaaranka 20aad, qur-aanka kariimka waa dhiirigeliyaha ugu weyn. dibadda ha ka raadinin dhiirigelin, waayo qur-aanka waa miinada ugu weyn tamarta ruuxiga ah iyo maskaxda haddii aad fahanto oo aad ku dhaqanto. dardaaranka 21aad, ma lihid ikhtiyaar aan ka ahayn inaad guulaysato. noloshu waa dagaal aan aqoonin daciiftinimo. ama adiga isdhis wax qabso ama kuwa kale ayaa ku dhisi doona sida ay rabaanna kaa yeelan doona. dardaaranka 22aad, ha noqon qof wax walba kaftan ka dhiga. inaad wax walba ciyaar ka dhigato oo aad wax walba isaga qosasho nolosha waxay keenaysaa inay dadka kaa faa'iidaystaan. wax walba aad qabanayso ka dhig wax dhab ah aadna si adag ugu howlgalayso. dardaaranka 23aad, la soxo khiyaanada matrixka. bulshada waxaa ka buuxa dabano qarsoon iyo dad hagardaamo badan. baro inaad daaha ka qaado khiyaanooyinka dadka iyo siyaasadahooda si aad naftaada u ilaaliso. dardaaranka 24aad, ka fiirso fikradahaaga. qaar ka mid a waxa aad aaminsan tahay ayaa laga yaabaa inay sun yihiin. had iyo jeer dib u cusboonaysii fikradahaaga si aadan ugu mashquulin wixii hore. dardaaranka 25aad, u faham bulshada si qoto dheer. dusha sare waa khiyaano, hoos ka qod infaalada bulshada si aad u fahanto sharciyada qarsoon ee adduunka lagu maamulo. dardaaranka 26
labaatanaad soo jiida dadka adigoo aan isku wada dhiibin. Marmarka qaar dadka marka aad ka fogaato ayay kugu soo dhawaanayaan. Baro istaraatiijiyada ah in aadan wax walba danin buuxda siinin. Dardaaranka 22aad ilaali maskaxdaada miirqabka ah. Maskaxdaada gudaha ah waa sida ciidda oo kale, ama waxaad ku beeranaysaa fikrado togan ama waxaa lagu beeri doonaa xumaan fara badan. Marka uu ilaali maskaxdaada si adag. Dardaaranka 28aad farqiga u dhexeeya qofka guuleystay iyo qofka guuldareystaha. Qofka guuleysta waxa uu arkaa guuldarada cashar, halka qofka aan guuleysan oo u arko guuldarada dhamaadka. Sidaa darteed waxa ugu muhiimsan waa sida u fasirato dhacdooyinka. Dardaaranka 29aad noqo hogaamiye saameyn kara dadka. Hogaamiyaha ma ahan jago, balse waa karti lagu dhiirigelinayo dadka kale. Ka bilow inaad naftaada bedesho, adduunka wuu ku soo raaci doonaa. Dardaaranka ugu dambeeya, dardaaranka 30aad farqiga u dhexeeya qofka waxgaradka ah iyo kan doqonka ah. Qofka waxgaradka ah wuxuu wax ka bartaa qaladkiisa, balse kan doqonka ah waxba kama barto qaladkiisa. Adiga dooro kooxda aad rabto inaad ka mid noqoto. Ugu dambeyn, daawadaha sharafta leh, 30 dardaaran aan soo sheegay imise dardaaran ayaan si gaar kuu soo jiiteen ama aad wax badan ka faa'iiday. Haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, labada asxaabtaada oo share u dheh. Intaan muuqaalkan lehna ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.